أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. صدق الله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وصلى اللهم وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله عبد الرحمن مركلتو iyo casharadii hanuun. maanta waxaan ka hadli doonaa haddii ilaahay yidhaahdo ism allahi alcadiim. muxuu yahay magaca ilaahay ee weyn? waxaa jira la yidhaahdaa magac ilaahay oo iska leeyahay subxaanahu jalla wacala oo magacyadiisa ka mid ah oo ciddii ku baraysa uusan marnaba soo celinba oo ajiibo calaa duul ayaa jiraa la yidhaahdaa. magacaasuna wuxuu ku dhex qarsan yahay la yidhaahdaa magacyada ilaahay ee faraha badan subxaanahu jalla wacala. laakiin cudurdaar yaraan bixiyo marka ugu horreysa. waxaan jeclahay inaan idhaahdo marka ugu horreysaba allah subxaanahu jalla wacala magacyo fara badan ayuu leeyahay walaalaha ila socdow. magacyadaas 99 dhe ama ka badanba dhe waxaa doontaba dhehe magacyo fara badan oo allah leeyahay subxaanahu jalla wacala. magacyadaasoo u qalma allah subxaanahu jalla wacala isaguna uu isku sifeeyey. hal xabo oo ka mida oo nusqaan lahu kuma jiro. kulligood waxa weeyaan 100% weeyaan. waa magacyo u qalma rabbi jalla sha'nuhu. marka qofnaba yuu ku fekerin in magacyada ilaahay qayb ka mid ah ay nusqaan yihiin ama ay xun yihiin. kulligood way fiican yihiin. maahan inaan ku sifowno sidii dadka ahlu kitaabka ahaa iyo kaleeto, gaar ahaan dadka kirishtaanka ah waxay necb yihiin magaca la yidhahdo aljabaari necb yihiin oo ka cararaanba midka wax khasbaaya wax noocaasay yidhaahdaan. marka saasoo kale ma la rabo. magacyada ilaahay kulligood waxa weeyaan kuwa u qalma allah subxaanahu jalla wacala oo sifaadkiisa saxda ka turjumaya weeyaan. marka taas horta waxaan jeclahay cudurdaarkooda inaan ka dhigo. midda labaad, magac ilaahay inuu jiro oo cadiim ah aayadda hadda aan soo furanay qur-aan macnaa cashar ku furanay ayaa sheegaysa. rabbi wuxuu odhanayaa fasabbix bismi rabbika alcadiim. ku tasbiixso magaca rabbiga ee cadiimka ah. magaca rabbiga oo cadiimka waa kee? waa inaan fahnaa oo aan macnaha baarnaa. meeshaan suuraddan suura waaqica la yidhaahdo 2 meelood ayuu uga jiraa magacaas maxayatu rabbiga ee cadiimka ah. halkan aayadda 74 waxaa ku jira fasabbix bismi rabbika alcadiim. suuradda dhammaadkeedana waxaa ku jira fasabbix bismi rabbika alcadiim. inta ka dhexaysana qur'aanka looga hadlaa majoritigeeda. marka caadi ma ahan, arrin la yaab la weeyaan. 2 jeer ayay soo laabanaysaa. qur'aankana dabeecaddiisa waxaa weeyaan shayga uu ka hadlayo xabaduu u sheegaa. haddii shaygu 2 yahay 2 jeeruu soo celinayaa. hadduu 3 yahay 3 jeeruu soo celinayaa. hadduu 10 yahay 10 jeeruu soo celin. macnaha waa arrin iga yaabisay oo aan meel walba ku arkay weeyaan. saacadaha, bilaha, sanadka, naarta, wax walba xabaduu u sheegayaa. macnaha xabad ku celi mid kale saasa lasu garab dhigayaa. marka wax la yaab la weeyaan runtii. wax qur-aanka aan ka bartay weeyaan oo aan ila yaabay weeyaan runtii. waxaan jeclahay inaan dul marno magacyada ilaahay. axaadiista maxay ka yidhahdeen nabiga sala allahu alayhi wasalam magaca ilaahay ee acdamka ah. waxaana weeyaan meeshan axaadiis fara badan ayaa ku jirta. waxay leeyihin axaadiista qaarkood wa ilaahukum ilaahun waaxidun laa ilaaha illaa huwa araxmaan araxiim weeyaan magaca cadiimka ah ilaahay subxaanahu jalla wacala. qaar kale waxay leeyihiin wuxuu ku jiraa magacaas ilaahay ee cadiimka ahu suura baqara aayad kursiga allahu laa ilaha illaa huwa alxayu alqayuum, iyo suura al cimraan aayadda ugu horeysa sidoo kaleeto allahu laa ilaha illaa huwa alxayu alqayuum ah, iyo suuradda la yidhaha suuradaaha aayad ku jirta oo ah wacanat alwujuuhu lilxayi alqayuum. saddexdaas ayaa laga soo wariyey axaadiis sheegaysa nabigu inuu yidhi sala allahu alayh wasalam 3 suuradood ayuu magaca ilaahay culus ku jiraa. markii la baarayna waxaa la ogaaday 2daas magac inay ku jiraan maxay ahayd suuradahaas iyaga ah. waxaa kaloo jira axaadiis kaloo tilmaamaysa in magaca ilaahay uu ka mid yahay duljalaali waalikraam. duljalaali waalikraam ciyaar maahan isaga naftirkiisu. marka inagu ijtihaad ma samayn karnaa? horta waxaan baari karnaa. wax nooga reebaa ma jiraan inaan wax baarno. meeshaan ayaan waxaan jeclaa qur-aanka inaan baarno oo aan ku tadabburno. qur'aanka in lagu tadabburaa la rabaa oo la baaro oo cilmiyada uu ka hadlayo waxyaabaha uu ka hadlayo
maalin walba wax cusub ayaa ka soo baxa qur-aanka maalin ilaahay keeno qof walba oo fikira wuxuu ku arkayaa wuxuu la yaabo ku arkayaa waana mucjiso mukhalladaah oo socota weeyaan ilaa qiyaam saaca soconaysa weeyaan meesha waxaan ku aragnaa Allah subhanahu wa ta'ala suura baqara ayada 186 wuxuu ku leeyahay wa idha sa'alaka ibadi nabiyullaahi maxamed hadii adoomadeedu ku weydiiyaan anni xaggayga aniga hadii wax ka weydiiyaan fa inni qariibun ujiibu da'wata daa'i idha da'ani falyasjibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun hadii adoomadeedu wax ka weydiiyaan u sheeg anigu waanu dhowahay waana ka ajiibayaa kii ibarya baridiisa waan ka ajiibayaa ayu ilaahi subhanahu wa ta'ala عادي ما مرنا عادي ما قرآن كده بعد سنو حيتهاي هذو إشارة كسيو إشارة داس ماشى لقى تل معناها ماشى نفتر كده هورتها كفوجان ماشى وحكبار ماشى سبع علمي وكجرابة هل كان وحنكو أركي الله بالجملة دوت أو مقعد إلهي كمده وحنا ويان قريب يمجيب ويان قريب يمجيب مقعد إلهي كمديشين هل كان محيل هذا هاي بريان أدو مديدو وأنا لوهي وأنا أجيبيا labadaas jumladood in quraanka dhexdiisa ka raadshay waxaana ka helay suura Hud ayada 61 rabbi wuxuu oranayaa qariibun mujibun exactly sidii ay had magaca saxda 100% waatan aha qariibun mujibun nabiyullaahi sallallahu alayhi wasallam markuu qoomkiisa la hadlayay oo u sheegay ilaahay mooyaan ilaah kale inaysan lahayn ee ilaahay u toobad keenaan oo ilaahay dambi dhaaf weydiistaan wuxuu ku soo khatimay إن ربي قريب مجيب هل ميل أو كلا قرآن كجمع جفت جملة النوع أصلا لبداس قيبات أو سداس هو قريب مجيب القرآن كميل كلا كجمع جفت أوكي سيسعو بارثانك سيوت وعنتقينا سورة غافر ربي وحورنا وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم ربي جيم وحودين أورانيا بني آدم إبريا أنا بك أجيبي أنا إذا أجيبه كلمة أجيبده هرت مجا إلهي ما تهي هذا مجا إلهي تهي ونعم تهي إيجاد النفتر كده وين الغبتها سيسعو وعن تجينا سورة اللي سورة عراف ربي وحورنا إياه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها مجا يوم وناكسن أي إلهي ليه إيجا كبريا أي الله ليه سبحانه جل وعلا هذا الكوحوي هي قنتي يقولانتكي حديثي وصو أرقني أن قرآن كنا وأرجنا قابك أو قرآن سو إلا تبيحنا يوم معناه أو سو فسرينا وأرجنا أو سو شرحيه أنا وحن لا يهي إلهي بقى حق غدا لكن وحن لا يهي كو وحن قلنا يا هذا النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يا الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سدح ذات جملة دوت أيام كو قلنا إياه قيبت أفرادنا وحن قلنا إياه قريب مجيب قف والباء دون إلهي إنه بريو سبحانه جل وعلا وحن لا يهكتجن لا بداس جملة يهكتجن عن لي وحد قلت قدرته السمت قدر مركز إلهي بريو سبحانه جل وعلا صفي عنه لقيسو وحد ترى هذا يا غريب يا مجيب يا ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت أنت الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنت تصمر كاد آخر الصو الله وحد ربطه في صومالي إلهي كبري هذا إرساقات ربطه هذا حوال ربطه هذا عفمات ربطه هذا جنة أباهنتهاي الله وحد مراد كاجو إلهي دوني سراد كبريدو انتاس جملة ضد مركز سوء أخرته يا غريب يا مجيب يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد انتاس مركز سوء أخرته مركز بعد إلهي بري سبحانه جل وعلا بإذن الله الكريم دعاء إلهي مسوء لي مرنا بإلهي سوء لما سبحانه جل وعلا انتاس ينجعل استناسو قد بيو هدي عن خير شيء إلهي أنه وقف سبحانه جل وعلا هدي أن خالدين ربك عفي سيد بدافه ويدي سنية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.